gudoomiyaha naadiga akhriska qoraalka Axmed Cabdi Saalax Axmed Haykal oo waanta u horeeyay warbaahinta Star ayaa ka hadlay faa'iidada ay leedahay wax qoristu iyo sidoo kale wax akhrisku waxa kale oo ka hadlay taariikhda ururka halkaraan iyo sidoo kale waxyaabaha uu qabto bulshada ku dhaqan magaalada Burco gudoomiyuhu sidoo kale waxa uu baaqo diray qurba joogta ka soo jeeda gobolka iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliland waxaan ugu baaqay in la taageero naadiga akhriska iyo qoraalka halkaraan maadaama yahay ururka ugu weyn magaalada Burco waxaan u yiri alxamdulillaah rabbil aalamiin ugu horeyn ilaahay waa mahad leh waxaan jeclahay maanta runtii inaan laba iyo saddex qodob ka iraahdo halkaraan waa tuma halkaraan maxay qabataa maxay u taagan tahay bulshada maxay ku soo kordhisay faalooyin yar oo kooban oo noocaas oo kala wada jeclahay maanta inaan ummadda la wadaago halkaraan xogteeda kulay waxaan filayaa inaanay badi ku cusbayn ummadda reer Soomaaliland ama ummadda Soomaaliyeedba qof kasto oo Soomaali ku hadlaba inuu halkaraan maanta magaceeda garanayo gudo iyo dawladba muddo 10 sano ayuu naadiga halkaraan ka asaasan yahay gobolka Togdheer ee magaalada Burco 2009 bay ahayd markii naadiga halkaraan halkani laga asaasay baahi markaa la arkay dhalinyarada gobolku inay runtii markan u baahan yihiin inay helaan goob akhris oo noocan oo kala rug ay ka helaan kayd kutub oo runtii ay wax ku kala faa'iideystaan waxna ku akhristaan waxa la yiraahdaa akhriska qoraalka marka laga hadlayo qofku ka akhris badan yahay ayuu ka ogaal badan yahay baa la yiraahdaa dad eegto ummadaha horumaray runtii wadamada Yurubiyaanka ah hadda u fiirsato waxay dhalinyartooda iyo wadamadooda ku horumareen waxa weeye iyagii wax baaray iyagii oo runtii wax akhriyay inana waxa la moodaa runtii maanta inaynu wadadii hayno oo wixii aynu soo fahmayno xarunta naadiga halkaraan oo labada gelinba u furan dhalinyarada gobolka iyo waayeelkaba iyo cid kasta oo xiisaynaysa inay wax ogaato waxna akhrido in rugta kaydka kutubta magaalada Burco ee halkaraan ay saacad walba u iman doonaan shaqaale carbisan oo labada gelinba u furan runtii ay ugu imanayaan iyo soo dhaweyn qurux badan fariinteeda u dambeysay halkan waxay tahay oo halkan uga diraya qurba joogta gobolkan Togdheer ka soo jeeda golaha deegaanka iyo xukuumadda sare oo garwadeenka ka yahay mudane Muuse Bixi Cabdi madaxweynaha qaranka mudane madaxweyne gobolkan Togdheer wuxuu ka mid yahay goboladii laga doortay ee dhalinyaradiisu sida hagar la'aanta kuga hagar baxeen mudane madaxweyne qoraaladaadii iyo ballanqaadadaadii af iyo qoraalba lahaa ee marar fara badan ku celinaysay ee ahaa dhalinyarada gobolka Togdheer waxbaan la qabanaya dhalinyaradan dhiiri gelinaya shaqo abuur baan sameynaya tiibe dhalinyarada gobolku maanta kaaga fadhiyaan ilaahay xamdigii waxaan kaaga mahad celinaynaa in khudbad sanadaadkaaga ugu horeysay uu ku jiray inaad dhiiri gelinayso dhalinyarada iyo goobaha akhriska ee library-yada rugta naadiga halkaraan ee gobolka Togdheer maanta adiga ku sugaysaa waxaan rajaynaynaa waxa ay heleen gobolada kale ee Hargeysa ka mid tahay ee Berberi ka mid tahay ee runtii goobaha ama rugaha quruxda badan ee dabaqyada loo dhisay inay gobolka Burcana ay helaan Burcana xaq uma helin iyadoo ku nool yihiin runtii dhalinyaro 300 oo kun kor u dhaafay inay runtii laba qol lagu soo koobo oo runtii magaalada ka baxsan mudane madaxweyne waxaan ku leenahay cadaalad badcaan ku ahayd gobolka Togdheerna uu ku sugaya gudoomiye Axmed Haykal hadalkiisa sii watay sidoo kale waxa uu baaq u diray ururada cusub ee ku soo biiraya magaalada Burco waxaan ugu baaqay in laga fogaado wax kasto kala qaybin keenaya waa kan gudoomiyaha marka arrimahaasi ka hadlaya waxaan kaloo sidoo kale halkan uga baaqaya ummad waxay horumar gaadhaa markii ay iskaashato markii ay gacmaha isqabsato meel la uga soo wada jeestaan horumarka halka ama degmada ama deegaanka ay joogaan gobolkan Togdheer wuxuu caan ku ahaa dhalinyaradiisu inay iskaashato oo runtii meel ay uga soo wada jeestaan waayadan dambe waxa soo shacbaxay umar runtii aan arkaynay dhalinyaro runtii media laba oo runtii sidooda u shaqeynaya oo magaceynadi sheeganaya oo inagu soo farabadanayay sida runtii macluumka ah ee waadixa inuu wada ognahay rugtani halkaraan iyadoo ah runtii publiga oo ummadda runtii gobolka Togdheer iyo ummadda reer Soomaaliland ka dhaxaysa oo runtii iyadoo akhriska iyo qoraalka iyadoo ku suntan oo iyadoo runtii gobolkii la aqoonsan yahay ma jeclin in dhalinyarada lagu kala qeybiyo ama lagu tafaraaruqiyo meelaan manfac ka soo jirin dhalinyarada runtii ku mashquulsan ururada yaryar ee waxa noocaas la midka ah waxaan ku baraarujinaynaa uguna baaqaynaa halkan inay tahay meel ay wada leeyihiin halkan inay tahay meel fikirkii himilada quruxda badan ee ku jirta ay ku soo bandhigi karayaan kaalay baan idin leenahay halkaraan idinka iska leexdinay nagama laha gobolkuna wada jirku ku qurux badan yahay halkaraan runtii waxaan soo dhaweynaynaa marka koobaad cid kasta oo marka koobaad horumar ka shaqeynaysa oo runtii
ka shaqeynaysa gobolka iyo bilicdiisa iyo runtii gobolka wixii horumar u ah marka laga reebo wada shaqeynna waanu leenahay marka laga reebo shaqada aanu hayno oo akhris iyo qoraal ah cid haysa oo runtii iyadu wada oo u aragno runtii inay horumardiid tahay ama runtii carqalad ku noqonayso si socodka xaruntani halkaraan oo u arkayno runtii inaanay wax qurux badan ahayn runtii cid shaqo haysa in shaqo labaad laga daba keeno runtii waan cambaareynayna وانا كسو horjeedna waxaan jecelnahay hadii Ilaahay ka dhigo in wixii akhrisa iyo qoraal la mideeyo laguna mideeyo rugta halkaraan ee muddada 10 sano soo jirta Cabdiraxmaan Cabdullaahi Xasan Camaar wararka Star magaalada Burco